xogayaha arrimaha gudaha Mike Pompeo ayaa waxa ku soo baxday fadeexad la xiriirta hub laga iibiyay dalkaasi Sacuudiga ee Mareykanku xilli uu diiday Koongareeska Mareykankaasi baaris baan wadnaa baaraha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku sababeyn doona haddii madaxweyne Trump uu si sharci darro ah ugu dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u caqaladeeyo xeerarka Koongareeska inaan hub laga iibin doonin Sacuudiga iyo Imaaraad ayaa waxay had kartaa ama caqabad kala iman kartaa aqalka cad ee Koongareeska isagoo isku dayay inuu baarista caqaladeeyo. xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu diiday wareysi uga yimi baarayaasha, taasina waxay bedelkeedu ugu jawaabaya Lake waxa yiri madaxweyne Trump toddobaadkii la soo dhaafay waxaana lagu eedeynaya inuu baaray go'aankii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay xaaladda degdega ee lagu xiray arrimaha qaranka si cudurdaar loogu sameeyo 8.1 bilyan oo u dhaafsiisanayo Sacuudigaasi. aqalka cad waxaan lagu eedeynaya inuu wax ka qoray waxa jiri kara sababo kale oo lagu eriyo Lake. xafiiska waxa uu ku codsanayaa ku baaray ku dhawaaqida xaaladda degdega ee Trump si uu hub uga iibiyo Sacuudigaasi. sawir buuxa ilaa hadda kama hayno waxa xunin xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu diido inuu Lake eriyo qorintiisa aanu shaqadiisa dhameysan. khilaafkan u dhaxeeya Koongareeska ee ka imanaya aqalka cad waxa uu soo bilaabmay sanadii hore ee la soo dhaafay. sharci dejintu waxa ay ku cambaareynayaan dhimashada dad badan oo shacab ah ee ka dhalatay dagaalkii cirka ee Sacuudigu ku wado Yemen iyo sidoo kale xaaladda guud ahaan ee xuquuqda aadamaha ee loo geystay wariyihii caanka ah ee Jamal Khashoggi oo saameyn weyn ku yeelatay. Koongareesku waxa uu ku guuldareystay inuu hore istaago qalabkii militariga ah ee sanadkii la soo dhaafay ee laga iibiyay Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ilaa haatan laba dal lagu xasuuqayo. Xamsada Baari Telefishinka Star.